taliyaha cusub ee dhawaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu magacaabay ciidamada daraawiishta Puntland ayaa kormeer ku tagay aagga Tukaraq oo isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland waxaana ku wehelinayay booqashadan qaar ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ciidamada Puntland una ka mid yahay abaanduulaha guud ee ciidanka Puntland. taliyaha oo la hadlay ciidamada goobta uu kula kulmay ayaa ugu baaqay ciidanku inay dhulkooda difaacaan maadaama lagu soo xadgudbay oo dhulkooda duulaan lagu yahay waa sida uu hadalka u dhigay. waxa uuna sheegay inay heli doonaan wixii xuquuq ah oo dawladda uga maqan. muddada aan hadda anigu xilka hayo oo meesha joogay wax yar bay ahayd asbuuc kama soo wareegin waxaan jeclaystay inaan marka ugu horeyso bal salaan idinku imaado saaka waxaan idinku imi salaan inaan wajiyadiina arko oo idin hor istaago idinkuna wajigayga aragtaan haddii rag hore isu yiqiinay ma dhihin laakiin wixii hadda ka dambeeya baynu isbaranaynaa haddii ilaahay idmo dhulka kan aad joogtaan iyo deegaanka kan aniga iguma cusba waxa weeye aad iyo aad baan marka ugu faraxsanahay imaatinkaan idin imi xaaladihiina si fiican baan ula socdaa warbiximahooda horaan u hayay ciidanku waxa uu ku sugan yahay haddaan xilka qabtay oo halkan lay dhiibayna mas-uuliyiinta xilka ay dhiibtay waa ka wada hadalay oo wax kale isugu haray ma jiraaniin anigu waxaan yidhi xilkaas haddaan qabtay wixii waajib ah oo nala ku leeyahayna waa gudanaynaa wixii xuquuq wixii aanu leenahayna inaanu helno baa laga maarmaana ciidankaasi waxa uu xaq u leeyahay nin walba waa yaqaana nolol buu xaq u leeyahay oo mushahar iyo raashin iyo iidaan intaba leh daryeel buu xaq u leeyahay agab buu xaq u leeyahay saanad buu xaq u leeyahay gaadiid buu xaq u leeyahay shidaal buu xaq u leeyahay hawlgallo uu fulinayo uu xaq u leeyahay waxa allaale wixii ciidanku xaq u leeyahay inaanu helno baanu ilaahay idankii rajaynaynaa kana sugaynaa madaxdii xilka haysay oo magacawday sida kaliya oo aan ku gudan karaynaa waajibka iyaguna waa sidaa dhammaantii waxa u timaadeen halkan inaad daafacdaan dalkiina waa laydinku soo xadgudbay dhulkeenni baa la soo sheegtay oo laydinku soo xadgudbay inagu ninna ma doonan ninna duulaan kuma dhihin waxaanu doonaynaa Soomaali inay kala nabad hesho oo kala nabad gasho oo nin walba deegaankiisu ku sugnaado dalku wayna ka wada dhaxeeyay hase yeeshee burbur baa dhacay dawladdii dhacday dabadeedna deegaan walba deegaankii dadkiisii baa tegey dadkiisu waa inay ku nabad helaan deegaankooda reer ka adag iyo reer qabsan kara iyo reer ku duuli kara midna ma jiro waa xaqiiqo dhaba weyn inaad marka dalkiina difaacdaanin baa halkan u joogtaanin annaguna aanu hadda madax idinku nahay ilaahay idankiis ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu nala garab galo hawsha iyada deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool ayaa waxaa dhowr jeer dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Somaliland ilaa iminkana isku horfadhiya oo aan wax waan laga gaarin. Cabdilaahi Yusuf Cabdilaahi Bakayle telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Garowe.